barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa waddanka Qatar iyo Olombikada adduunka ee lagu qaban doono 2022. Dadaal badan oo galay kadib wuxuu ku guuleystay in lagu qabto marun Olombikada adduunka. Waddanka Qatar wuxuu ku yaalaa qaaradda Aasiya, wuxuu la jaar yahay dhulweynaha Sacuudiga iyo Imaaraadka sharka badan. Wuxuu bad la wadaagaa Imaaraadka, sidoo kale Bahrain iyo Iran. Waddanka Qatar waa waddan hodan ku ah saliidda dabiiciga iyo gaaska naturalka uu soo saaro. Waddanka Qatar wuxuu kaalinta koowaad ka jira wadamada ugu dhaqaalaha badan qaaradda Aasiya. Haddaba waddanka Qatar waxaa lagu qaban doonaa Olombikada adduunka 2022 kaasoo ka dhici doona waddanka Qatar. Sanadkii hore wuxuu ka dhacay 2018 waddanka Russia. 2022 wuxuu ka dhici doonaa waddanka yar ee Qatar. Soo jiidashada garoomo badan oo dhisay bilicda magaalada ayaa ka yeeshay inuu noqdo waddan loogu tartamo ama lagu qaban karo Olombikada adduunka. Aynu eegno garoomada la dhisay ee loogu talagalay ee lagu diyaar galoobay in lagu qabto Olombikada adduunka waddanka yar ee Qatar. Waxaa la aaminsan yahay waddanka Qatar inuu lacag aad u fara badan ka dheefi doono Olombikada adduunka 2022. Haddaba waxaa lagu diyaar garoobay garoomo cajiib ah. Aynu eegno garoonka koowaad, Qatar University Stadium waa garoonka koowaad. Wuxuu qaadi karaa 43,520 qof ayuu qaadi karaa. Waa garoonka lagu diyaar garoobay Olombikada adduunka 2022. Garoonka labaad waxaa loo yaqaan Ahmed bin Ali. Wuxuu qaadi karaa 44,740 qof ayuu qaadi karaa. Waa garoonka labaad ee lagu diyaar garoobay Olombikada adduunka in lagu qabto waddanka yar ee Qatar. Garoonka saddexaad waa loo yaqaan Thani bin Saachin baa loo yaqaanaa. wuxuu qaadi karaa 44,740 qof ayuu qaadi karaa. Waa garoonka saddexaad ee lagu diyaar garoobay Olombikada adduunka. Garoonka afraad waa Doha Port Stadium. Wuxuu qaadi karaa 44,950 qof ayuu qaadi karaa. Waa garoonka afraad ee lagu diyaar garoobay Olombikada adduunka. Garoonka shanaad wuxuu noqonayaa Salal Stadium. Wuxuu qaadi karaa 45,120 qof ayuu qaadi karaa. waa garoonka shanaad ee lagu diyaar garoobay Olombikada adduunka. garoonka lixaad waxaa loo yaqaanaa Al Wakrah Stadium. wuxuu qaadi karaa 45,120 qof. waa garoonka lixaad ee lagu diyaar garoobay Olombikada adduunka 2022. garoonka toddobaad waxaa loo yaqaanaa Al Shamal Stadium. wuxuu qaadi karaa 45,120 qof. waa garoonka ugu quruxda badan kuna yaala xeebta waddankaasi Qatar, jasiirad lamooda Qatar. garoonkan waa garoonka ugu quruxda badan ee kuna yaala xeebta, waxaana loo yaqaanaa Al Shamal Stadium. garoonka sideedaad ugu quruxda badan waxaa loo yaqaanaa Al Khor Stadium. wuxuu qaadi karaa 45,330 qof. waa garoonka sideedaad. garoonka sagaalaad ee ugu quruxda badan ee lagu diyaar garoobay Olombikada adduunka waxaa loo yaqaanaa Educational City Stadium. wuxuu qaadi karaa 45,150 qof. waa garoonka sagaalaad ugu quruxda badan waddanka Qatar. Sport City Stadium Doha waa garoonka tobnaad ugu quruxda badan waddanka Qatar. wuxuu qaadi karaa 47,560 qof ayuu qaadi karaa. waa garoonka ugu quruxda badan wuxuuna ku yaalaa magaalada Doha ee waddanka Qatar. u diyaaris garoobista Olombikada adduunka waa shay aad u muhiim ah laguna qiimeeyo waddan. garoonka 12aad ee lagu diyaar garoobay Olombikada adduunka waddanka Qatar waxaa loo yaqaanaa Khalifa International Stadium. wuxuuna qaadi karaa 68,030 qof ayuu qaadi karaa. garoonka 12aad waxaa loo yaqaanaa Lusail Iconic Stadium. wuxuu qaadi karaa 68,250 qof. garoomada ugu quruxda badan adduunka waxaa dhistay waddanka Qatar. ku guuleysashada Olombikada adduunka waa shayga ugu muhiimsan, waxayna ka soo hoyn doonaan malaayiin lacaga u soo xiran doonta waddanka yar ee Qatar ee dhaca qaaradda Aasiya.
waad ku mahadsantiin la socoshada barnaamijkan soo kulno daawadayaal subscribe iyo like noo saara si ay noogu noqoto dhiirigelin daawadahayaga qaaliga asxaabta aan jecelnahay maxaa ku diidaya inaad markaba subscribe noo saarto like gambalelkana aad furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan